الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا برنامج كميس كوده هذا أما منبر الحوار وآلا بحالكن عاد كذا وتعن فردقن وفردقي صديحات وأي سوي معدان علماء ودينك دنك أهل السنة إيو دنك الشيعة شيخ عبد الرشيد شيخ محمد أيام كسر دوينيا شيخ عبد الرشيد كسر دو. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا معي عبد الرشيد محمد آدم وحان كالصعود لنا أهل السنة موضوع كسابسن الخلفاء الراشدون هي خلافة ده يو إن يهاين أئمة الهدى إن يهاين موضوع عسن كهلنا حان كالصعود أهل السنة كالصعود الله يحييكم. وما سنت هاي شيخ فارح كسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. مقعي هو فارح إبراهيم شيخ عبدي وحان كالصعود ممثلين مدرسة الرسول كان صلى الله عليه وآله وسلم اللي يقال علماء الشيعة الاثنا عشرية. وهلا إن شاء الله موضوع أن كهل لنا مانتا وموضوع الخلافة. خلافة دي صومرتي ومدى إسلام كأه يوحي أي هايين بإذن الله الباري سأنه مدى وعدينا. وما سنتين دماتين موضوع هو خلفاء الراشدين. خلفاء الراشدين هي واحد كقبة الشيعة وحان كسر ويننا شيخ عبد الرشيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلاته والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهدي إلى مدينة ما بعد. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. dib celin yar macnaha waa mawduucii saddexaad oo aan la galno qolyaha shiicada ah. Waxaan horey uga soo hadalnay qur-aanka fadhi hore, waxaan kaloo ka soo hadalnay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo cismadiisa iyo meel ka dhaca iyo say mataqaanaa waxa la yidhahdo ay u tashniiciyeen ama se u takfiiriyeen ama se ernaar ugu xukumeen qolyaha shiicada la yidhaahdo. Marka waxaan ka yar cudur daaranayaa tusaalahan fadhiyadaas hore oo kale xoogaa xagga qalabka waxbaa naga yar hadlaysana hawshaasaan ka daaranayaa kow. Waxaan kaloo ka cudur daaranayaa waqtigaa nagu yar qolyaha ma dhexdhexaadka ee maamulka ah baan isaa go'aamiyey marka waqtiga haddii nagu yaraado wixii cidhiidhi iga soo galaa waan ka cudur daaranayaa. Inta haddaan kaga gudbo waxaynu ka hadalnaa walaalayaal oo aan kala niqaashnaa wadaadadan waxa la yidhaahdo waa alkhulafaa uraashiduun ridwaanullaahi calayhim. khulafaa uraashiduun annagu waxaanu leenahay waa khilaafadii intii ka dambeysay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadkii lagu soo aaminay ee ummaddana soo samata bixiyey ee ilaahay subxaana wa tacaala agtiisana maraatib iyo wax le darajooyin khayr ka leh ilaahay subxaana wa tacaalana qur-aankiisa ku caddeeyey qur-aanka ilaahay ku caddeeyeyna axaadiista rasuulkuna caddaysay axaadiista aan soo qaadanana wixii iyaga iyo annagu aan isku waafaqsannahay baan soo qaadanaya haddii lahayd. Si aad og tihiin sheecadu su-aalahaan baan su-aalaha haryaan baan ka dhigi doonaa. allah weyna waaxidka wuxuu leeyahay waasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriin waalansaar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ما شاءوا في رصدا خالدين فيها أبدا بإله سبحانه وتعالى ذلك الفوز العظيم. والسابقون كوي هرمري هرمري إسلام نمضة يسوق لتانكود الأولون هريي بالنسبة من أسلم يعني كوي إسلامي كوي هريي وحال ليه إسلام كوي هرمرين كو أنت إسلامتين ويهرمرين لبو من المهاجرين. dee waxaadna ogtihiin khulafadu maxay kamid yihiin muhaajiriin bay kamid yihiin soo maha mawduuc maanta marka wuxuu ku saabsan yahay min almuhaajiriin hoosta ka xariiq iyo wal ansaari waladiina ittabacuuhum iyo kuwii raacay haye nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam muhaajiriin iyo ansaar ka bacdi intii nebi maxamed rumaysay ee saxaabadiisa ahayd baad ka soo bilaabaysaa ilaa iyo qiyaami saaca intii rumaysay ilaahay iyo rasuulkiisa isla markaana dariiqadaas saxaabada ay mareen martay والذين اتبعوهم كوي كراع بإحسان رضي الله عنهم وحاد فيرستا هوستا كحريقو إلهي باكرها للنقضي إلهي باكرها للنقضي إيمان كوذا إسلام نمدوذا معناها هنون كوذا وناق كوذا بإلهي سبحانه وتعالى كرها للنقضي هاي ورضوا عنه يقول إلهي باكرها للنقضي ومحاقوا عنه يقولها للنقضي وين إلهي سبحانه وتعالى ما داب إلهي يقول كرها للنقضي يقول إلهي باكرها للنقضي بإلهي سبحانه وتعالى وليه وعد لهم جنات تجري من تحت الانهار يعني إلهي وحكله الدياري جنوين jannooyinkaasu jannooyinkoo dhan ma ahee waa jannooyin ka sii duwan maxay kaga duwan yihiin webiyaal baa hoostooda qulqulaya
haye waxay kaloo ku sii cajiibsan yihiin haddana markay jannooyinka galaan khaalidiina fiiha abadan weligood way ku waarayaan ilaahay subxaana wa tacala wuxuu ku leey daalika arrintaas la soo sheegay muhaajiriin ay leedahay iyo khulafada ugu horeeyaan yacni arrintaas iyada alfaws waa liibaantii alcadiim ee weynayd allaha weyna waaxidkaaba kule waa liibaantii weynayd weeyaan walaalayaal marka هنا ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى وحنا وجه كينيا تدك نوع عاسها وحل لي هذا أبال مرنت نوع عاسها لي إلهي رالي هالشيء سهلي جنوين هلي كواريا هدنا إلهي ليمانتي سهلي ليمانتا سنولي ومدوين إلهي أكتس كوين حلياب لشيعاد وحلي وحصل وحكي بنشران وكتبت قرن أبو بكر عمر عثمان اسكسو ضوضوبا وحلو يرن خلفاء الراشدين علي بن أبي طالب مركز لقرهبو قفك هالمر لعنة هالمر هذا واحد قفك لعنة باشنوين كجلية كنا واريا أنت سو أشرنا هلية وهالمر بالله عليكم سؤال شو حيت مرك الله سبحانه وتعالى يجا أيما بيارون شيء سؤال شاس حرب بني كتجوابين آية القرآن حين كتجوابي إيه واحد كتبت ذا قرآن بالله سوافجين إن آية الله بعد إلهي سبحانه وتعالى حليه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ما شاءوا في رسالة بين كل شيء مهاجرين فقراء هاي كوي جريه هذا لقى صوص صاري حوله هذا لقى صوص صاري محل لقى صوص صاري بالله عليكم محل لقى صوص صاري يبتغون فضلا وحي هذين يان أو ضلبنا فضلا إلهي بأجر كربان من الله من الإله بكربان إياه ورضوان إلهي رالها شيء كربان هاي حوله ذي حسي وتجين وينصرون الله إلهي بأجر جاري يعني الدين تيسا ورسوله يا رسول كيسا إلهي وحول أولئك كواس يجا هم يجا بوحيين الصادقون كور لي كنت شاقي إيمانك يرون كشاقين أو إسلام نمد يرون كشاقين أو واحد يرون كشاقين معناها قيم كإسلام نمد أي قاتين نصرينتا الله يا رسول كيسا يرون كشاقين وحي هذا شاعو يوم حبك كما جيران قفك هالمر لعنده هالمر خلفاء الراشدين قفك هالمر لعنده قفك سو اهل الجنه يراهدين إلهي سبحانه وتعالى ساسو ليه ومهاجرين وجهك الدلاله معنا سي وعنا كوغو عدايه يعني إلهي مهاجرين بوري مهاجرين يا ليهدا هورت تعريف كده وقفك كسو هجرودي مكا كسو هجرودي اما waxa la yiraahdaa dar istiraaxiga hore ee loo yaqaanay maka intuu ka soo hijrooday rasuulkii iyo madiina tagay u hijrooday yaa ugu horeeyay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam iyo abu bakr baa ugu horeeyay abu bakr inuu ku jireen waa u tagi doonaa kutubtooda ku taala inuu muhaajirkii nabi maxamed la socday idan wajhu dalaalo waxa weeyaan ilaahay baa sheegay muhaajiruun inay ehelun janno yihiin ilaahay dartiina ay u hijroodeen runna iimaankoodu u yahay xaqiiqana u yahay shaaca waxay dhahan waxaas xaba kaban jiraan ilaahay subxaanahu wa tacaala bilxisaabtankiisa ka hor kule ilaahay baa weydiin doonee waxaan weydiinaynaa bal ilaahay iyo kitaabkiisaas maxaad kaga jawaabaysaa qofkii iimaan ku jiro ama ilaahay rumaysan ama ilaahay iyo rasuulkiisa inuu is hortaagi doono qur-aankuna uu isagoo hadlayo hor imaan doono bal wuxuu kaga jawaabaa noo sii sheego aayadda saddexaad waxay tahay allah subxaanahu wa tacala wuxuu leeyahay muxamadan rasuulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم حد أركيسا نبي محمد iyo kuwii la socday isaga la jira waa saxaabadii muhaajiriin ansaar ba isku wada daro saxaabadii dhan duduube macnaha inagu waxaan uga jeednaa saxaabadii hadii leeyahay waxa ku jira ugu horeeya maxay khulafaa raashidiin baa ugu horeeya macnaha saa ay faham haye waxaad arkaysaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala rukucan waa kuwa waa salaad badan way iska rukuucsan markasta sujuudan way sujuud badan yihiin markasta maxay u sujuudayaan ee u rukuucayaan markasta yabtaquuna fadlan min allahi wa ridwana waxay raadinayaan oo dalbayaan oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay ka rajaynayaan waxa la yiraahdo maxay ilaahay inuu ka raali noqdo iyo ilaahay ajar siiyo fadli bay min allah ilaahay subxaanahu wa ta'ala karma aayadaasuna marka waa aayada ahlu sunnuhu ay yiraahdeen qofkii yiraahdo waxa la yiraahdo saxaabada wax ka sheega waahidun minhum uu sugnaaday inuu saxaabi noqday kow sidaasna uu ku dhintay islaamnimadaas waahid minhum qofkii ka sheego diinta islaamku ka baxaya ahlu sunnuhu saasi qaba طيب waxa la yiraahdo ilaahay subxaanahu wa ta'ala aayada kale waxay tahay aayada afraad آية سؤال استحضر من تاران صور شيء آية أفراد وحيتها إلهي وحوري لقد رضي الله عن المؤمنين هو سك حريق إلهي سبحانه وتعالى وحكرها للنقضي المؤمنين إذ حل بكرها للنقضي يبايعونك أي كل مبايعون ميان كل مبايع تميان أو كل بالله ميان أو عهدي بلن كل جليان نبي محمد وحل قاسو أي تحت شجرة الجيد كوه السجنايين فعلم الله وحوق هذا وين واحد ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير بإلهي سبحانه وتعالى ليه إلهي سبحانه وتعالى حقوق هذه ما في قلوبهم إلهي سبحانه وتعالى ما في قلوبهم قلب وذكره أو إسلام معه أو إيمان أو رنشيق أو إخلاص بإلهي سبحانه وتعالى أبوري إلهي قلبك صوما أبوري يجن إلهي صوما أبوري
carabkay gacantay ku mubaayacoonayaan ilaahay sooma abuurin idan ilaahay ma wuxuu ogaan waayay marka carabka ay ku hadlayaan qalbiga uu ka turjumaya xaqiiqada ku jirta miyuu ilaahay ogaan waayay subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacala markaas wuxuu leeyahay hee facalima alla wuxuu ogaad maa fii quluubihim faanzala alla wuxuu soo dejiyey assakiinata waxa la yidhaahdo deganaansho iyo xasilooniyo iimaan buu ilaahay subxana wa tacaala calayhim korkood ku soo dejiyey wa athaabahum alla waxaanu mataqaanay uu ka ajar siiyey fadxan qariiban alla hor ciidhii bay ku jireen soomaa xoolahoodiiya waa laga soo caydhiy soomaa waa loo gurmaday waa su-aasha afraad aayadda qur-aanka markaa maxalu shaahidku wuxuu yahay laga daliishanayo a'immadii khulafaa u raashiduun waxay ahaayeen baycatu ridwaan bay wada ahaayeen kulligood cuhmaan binu cafaan buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi anigaa u qaaday markaasuu yidhi gacantiidii iyo tiisii waatan labadiisa gamcooda suubanaha isaga markaa kulligood kasii wada bayco fiican ballanta yaa gelaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam gacantiisa bidix yaa qaadaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam gacantiisa midig ilaahay subxana wa tacala wuxuu ka yidhi facalima maa fii quluubihim ilaahay baan ogaaday runsheegooda cid walbaba bilaahi calaykum aayadda qur-aanka ilaahay subxana wa tacala saasuu inaga leeyahay waxay dhaheen nimanka la yihahdo shiicada raafidadu waxay yidhahdeen waxaas waxba kama jiraan far baa noo taagan aayaadka qur-aanka waa macruuf subxaana allah suuratu tawba iyo mataqaana wax waan soo wadaa macnaha taas macnaha waan taa waan soo wadaa macnaha waa shay macruuf oo waxaa lama diidaana waxaana warqado oo dhanta waddanka sheekh ku yaalaan marka bilaahi calaykum arrinta isweydiinta mudan waxay tahay waxa la yidhaahdo bal aayadaha qur-aanka ah war bal ilaahay iyo sheeca isukay waafajiya bilaahi calaykum bal waxaa isukay waafajisaan ilaahay subxaana wa tacala dadkii uu doortay iyo dadkii ilaahay uu doortay dadka kusoo duulay sheecada waxaa isukay waafajisaan ilaahay qur-aankan wuxuu ka yidhi iyo waxa la yidhahdo maxay iyo waxaa isukay waafajisaan iyo waxaa isukay waafajisaan mataqaana nimanka diiday nimanka yidhi hal qof oo ka mid a bani aadamka dhulka jooga hadduu hal mar waqtiga ga dhamaaday miya ayib kusoo dhawowsha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين أخواذا لما انكسوا قيب شيء أديات بعد ما هتسنتين برنامج كأن ما أنت أبلنا سنة وحويان حلو يقانو الخلافة أما خلفاء الراشدين ولغم مقعابي الراشدون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحندون هيا إن أنه الرأي حديثك هل كحديث سواء أرور النبي وموسى مقعابين صلى الله عليه وآله وسلم خلفاء الراشدين وحل اللي يراهدو والنبي يري وعلي وعثمان وأبو بكر وعمر مننا مجرو لا يوجد في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الراشدون المهديين هدي اللي يراهدنا وحي عدينيسا أو يسوغيسا أئمة أهل البيت المهديين إن يجويين ومحايا لي إمام المهدي أو متفق لبدا جنبي أي كويهين أيام مقع إسكاله هل مقع أوقفك أوليهين ولا قد جمعية أسماء ذا إيذا وحان ربا مركا إنا كدبا تقو آيذهن إيذا وخلفاء الراشدون اللي يراهدو إني من الجرين جبي أهام با أيان ربا إنا صور آيات القرآن سود لشدي أوليهي السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وحقيقة هي آية مثبتة لكن مهاجرين ودن ما ودا سقنيت وحن أركضنا إن يران فيرن دونا وعنك الذي هجري عبيد الله وهل كان كجروا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عبيد الله بن جحش باكجري أنه دخل هجرتين أيو قلي inaynan raggaasoo dhan wada ahlu jannahin baan rabaa inaan kuu sugo laba hijra ayuu galay hijratul xabash oo laba jeer ayuu galay markuu labadii jeer galay wuxuu ku ridoobay meesha loo yaqaano ardul xabash buu ku ridoobay waa ubaydullah bin jahsh wuxuu qabay gabadhii la dhihi jiray ramlata binti abi sufyaan gabadha iyada ana diinteedii bay baaqi ku ahayd isaguna wuu ridoobay famaata nasraaniyan isagoo nasraani ah ayuu dhintay ninka oo khadka u ka baxay muhaajiriinta kale ee iyaguna gaalowday ee shariicada islaamka ka baxday ilaahayna uu ka raadi noqday baan idin sheegi waxaa kamid ah ninkii la dhihi jiray Abdullah ibn Khatal oo nabigu uu yiri sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna ibn Khatal muta'alliqun bi istar al-Ka'ba malinkii maka la qabsaday ee saxaabadu saadeen nabigu wuxuu yiri uqtuluhu kama fi al-Bukhari wa Muslim sida ku soo aroortay waxaa kamid ah raggi kale ee nabiga quraanka kariimka alla yiri saddex meelood markii loo dhiga laba meel bay qoreen saddex meelood markii loo dhiga labo quraankana uu bedeli jiroon matniga Bukhariga dul istaagi doono waa ninkii la dhihi jiray Abdullah bin Sa'd bin Abi Sarh ninkii la dhihi jiray way Uthman bin Affan walaalka la aha oo dhinaca ridaaca walaalada kula aha quraanka kariimka oo dhan inta badan isaga ayaa qoray kaatib wahyi rasuulillaah ayuu aha sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fartadda ninka isaga waa ridoobay maalinkii maka la qabtay ayaa wuxuu ajiir u noqday oo uu fangalay walaalkii ninkii la dhihi jiray Uthman bin Affan nabigana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mar haduu Uthman uu hoosta gashaday walaalna uu kula ahaa nuugmada uu walaalo kula ahaa uu iska cafiyo uu iska daayay
gebi ahaanba faraha ayuu ka qaaday waxaa kaloo ka mid a raggii ridoobay ee muhaajiriinta ahaa ee haddana kaatibiinta waxyiga ku jiray ninkii la dhihi jiray cabdullaahi ibni sabaaba halkaa waxaan u malaynhayaa waa 4 nin intaan soo sheegnay cadad ma ay laha raggaa muhaajiriinta loo yaqaano ansaartana loo yaqaano ee ridoobay gebi ahaanba ayib sheekh wuxuu sheegay saxaabadu inay tahay dadka ilaahay rumeeyey ku dhintay dadka gaaloobay muul ka hadlay maya muusan kala qaadin oo aayaddu mayna kala qaadin oo waxay tiri asaabiquuna alawwaluuna min almuhaajiriina walansaari raggaa muhaajiriin bay ahayn ansaar bay aayaddu mayna kala qaadin aayadda qur'aanka ahee uu soo qaatay wax tafriiq ah sheekh waxa kugu taagan musbaarka iska bixi cabaadin joog gadaalka fadhi aayadan qur'aanka waxa maynan kala saarin asaabiquuna alawwaluuna min almuhaajiriina walansaar hadda waxaan soo sheegnay cadad aad u fara badan oo muhaajiriin iyo ansaarba aha oo ridoobay baan sheegnay gebi ahaanba ayib waxaa kaloo jiro rag muhaajiriin ah oo ninkii la dhihi jiray aad u fiiri hadda oo ilaahay uu ku tilmaamay faasiq buu ku tilmaamay faasiq ilaahay qur'aankiisa kariimka nin saxaabiya uu ku tilmaamay faasiq baa jiro ninkii la dhihi jiray waliid ibnu cutba ilaahay wuxuu ku tilmaamay faasiq saxaabadii buuna ka mid ahaa rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu an tusiibuu qowman bijahaalatin fatathabbatuuna riwaayo kale ayay ahayd aayadda iyadaa wayna mayna kala qaadin ansaar iyo muhaajiriin fara badan oo ridoobayna halkaa ayaan ku aragnaa aayaddan kale ee ah laqad radiya allaahu cani almu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara qur'aanku asaga ayaa isfasiro إلهي وحو كراد النقضي من المؤمنين أيو كراد النقضي لقد رضي الله من المؤمنين أيو كراد النقضي إذ وقت بو كراد النقضي يبايعونك أي كل مبايعون تحت الشجرة جيدي هوستي أي كل مبايعون هين فعلم إلهي وحو أغادي ما في قلوبهم إيه قلوب توضا وحكو السجن هو معي بركود إني النفاق قالي دونان بركود إني برين دونان مدن إيادا آيات كلي كهر رئيس فيري إلهي جل وعلا وحوليه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث بيعذا يد الرجي بريو فإنما ينكث على نفسي سيمبو بريو وعقل موسى بريو بيعذا مركا إن لقى بحيبان كتوس دونا فعلم ما في قلوبهم مركا ليلي فاء تعقيبا رعيوها فأنزل سكينة مدد قالوا بيبا يا سكينة للسنة نينك لو يقانو ابن الأثير وحو أبا بيستي ومن علماء أهل السنة والجماعة كتاب كيس لو يقانو أسد الغابة يا كتاب كيس تاريخ الكامل لبضو وحو أبا بيستباب الله يابي فعلم ما في قلوبهم وحو كفا سريبا ينكو شيء وحديث عبد الله بن عباس وحبر هذه الأمة أيو يقانان عند أهل السنة والجماعة وكسو قادها فعلم إلهي وحو أغاذي ما في قلوبهم قلوب توضا وحا كسوغن وبركوذ أغو بعض ما في قلوبهم وحا كسوغن أو من النفاق والإلحاد إيا وحا ويان والنكثئة آيادا قرآن كلا كو عدينيسو إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث قفكي بريو فإنما ينكث على نفسي إن لبريان كو شيء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بخاري وحوبا باستباب لي هذا رزية يوم الخميس maalintii musiibada nabiga in la buriyay oo waxa weeyaan la beeniyay ayaan rabaa inaan soo bandhigo صحيح البخاري وحسوها يا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم روايوين لا يابله نبينا جيريديس صدح مال كهر صدح مال أيو صحابتي سيسوي ياري هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده وحيري ورئي كان كتاب أن إذن قرأ إذن بعد دب دم بأيذن أباذ يومين كتاب إيه كان إذن بعد دب دم بأباذ يومين صحابتي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم هل كأيذا أمرك أي تري عبد الله بن عباس وحديث كإسجل اللي جورنه في صحيح البخاري ومسلم كسجن وأبي داود والترمذي وابن ماجه في كتب أهل السنة والجماعة أكثر كوضة كسجن وحوله عبد الله بن عباس وما أدراك ما يوم الخميس محاك أوجيسية مالنتها خميس النبي قال بينين دوني صلى الله عليه وآله وسلم اشتد برسول الله وجعه نبي وحاضر ناضي حنون كيسبات أدرنا فقال وحوله هلما أكتب لكم كتابا لا تدل بعده فقال عمر باوحوري إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلبه الوجع وفي رواية لمسلم فقالوا وحيد إن النبي إن هذا الرجل لا يهجر ننكن وانن والنا نوح لقى دغيسن كره معها ومع ذلك مسلم با وحولهي او شرح امام النووي او شرحي فنجونا وحن كبدبان مالك ايدا بفقه عمر بان كبدباني رسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم معذر يا رسول الله رسولك الهي با قد نغا توري لها رسولكنا هدو وح امر محال ربا امر هدو بخيو الهي قران كيس كريم كوحوله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون إلهي رسولك سهدي إذن يران أجيبا مرنا بيان هذا اللي علنين
مركب رسولك هذا البالغ علي رسولك أو هذا اللي علينا إلهي محوكير ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيره إلهي له رجع يا رسول الله محمد هل كا يا اسود بيسي فيري هذا وحو له إمام وبخاري اللفتي سمع رمنا إن دول استاغن وعندكم القرآن بقى هذه بيقول حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت كأي إسخلاف وصحيح البخاري واختصموا ويدودين مركب منهم وحاكم إذا من يقول قفل قربوا دوية يكتب لكم كتابا لا تدل بعده ورود دوية النبي كتاب أيضا بعد باديو بينبو إذين قرهياي ومنهم وحاكم إذا من يقول ما قال عمر ننك أفك أتكا الرسول كأد أو أفد كي هذا الكيس دتك قولها يولا إن الرجل لا يهجر رواية مسلم نوالو تجدونا رجل با كمده وننك رسول الله محمد ووالي هيله هل هذا هو مؤمن وهل هذا هو مسلم وهل هذا فيه وهل دخل في قلبه قطعة من الإيمان ننك ما كجرتا قلبه سقطعير أو إيمانك كمده وما إذن وحول النبي فلما كثر اللغو مركو قيلادي أي بدات اللغو إيه والاختلاف كي مركي بدات عند النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فقال وحول النبي قال وحول لهم يا رسول الله وحول قوموا استاجع عني أنا حقيقة كاستاجع فكان ابن عباس وحوها يقول كيكو قول إن الرزية كل الرزية مصيبة أوردن ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب مصيبة أوردن وحي أهيد كتابة دي رسولك إيا هذا الرسولك وحكالت هذا ويا بالله بهذا من تولى هذا الكلمة هو عمر أيها أرنتها إياذا أمركوبة أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغتهم عبد الله بن عباس مركب محوده يجري الله لمركو حادثة أو أركو عبد الله بن عباس وأو يجري حسيه اللي انت isaga ka qulqusho ayaa waxay buuxin jirtay dhulka ay buuxin jirtay muxuu leeyahay ninka loo yaqaan Abu Ya'la al-Mawsili baan rabnaa waxa uu ka yiri Imam Muslimna inaan iyaguna riwaayooyinka iyaga hal aan u daba istaagno oo bal aan fiirino ayaan doonaynaa hadalka Rasuulullaahi Muhammad lagu yiri sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa hal yastahiqu hadalka nabi wa muyumata illa nabiga hadal haduu bixiyo ilaahi quraankiisa kariimka wuxuu ku leeyahay ya ayuha alladhina ilaahi wuxuu ku leeyahay wa in tuti'uhu تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ رسولك دوشي سوح كلام أهان إلا وحا أهاتي جارسين وإيجا جارسيا موياني وحكى رسولك دوشي سماهن بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxa uu yiri wadaadka wada arkaysan macnaha duurka uu jeexay iyo meeshu ka dhacay wada arkaysan baan u maleynay wuxuu yiri waxa la yiraahdaa Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam ma magacaabin buu dhahay mid kamid ah khulafayeen horta ma uusan magacaabin buu yiri muxuu meeshaas u duur xulaya macnaha nimanka la yiraahdo khulafaa ar-raashiduun Abu Bakr Umar iyo Uthman iyo Ali yacnaha xagga Ilaahay subhanahu wa ta'ala xagga Nabi Maxamed toona yacna waxa la yiraahdo wax ay ka haysteen ma jiraan oo wanaaga haba yaraatay oo cid ma sheeginin Allah aan sheegin walaa Nabi Maxamed aan sheegin saas weeyl macnaha أنا واحد نشيء إن شاء الله تعالى كتبتها للصناعة يتشاعد واحد متخفى كويهين عدة للشيء يخلفاء الراشدون لولا جدوا إن يهين واحد اللي هذا أسماء هذا أصل الشيء دي رجع بركة سنة أولياء إلهي إن كمديين وحيد أن آيات القرآن كم حسوق لي ممكن الدوبي بسوق لي صحابي محلي هذا مركب هذا كعجب بلاوي صحابي محلي هذا أرت صحابي وحوي إنك النبي عليه الصلاة والسلام لك كل مي كو إرهمي لبو سداس وربع سنان كل انتبه هرت صحابي ليه ما diidanin way jireen dad yoontii soo islaam ridoomin ilaa yaalaankana way jiraan marka hore bay saxaabi oo haayeen maadmi ka hadlis Allah subhanahu wa ta'ala ballanqaadkiisu xaqiiqo iyo run way shakina kama jiro ilaahay baa waxa subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay khalidina fiha abadan way ku waari doonaan wuxuu leeyahay ka wada halka inuu ku yiraahdo kuwa ridoobay ee gaalada aba naar jannada ku waaray saas rabaa inuu ku yiraahdo marka arintaas maxaad malaynaysaa idinku yacnaha waa takdiib oo hadana oo bilow ah kii hor mid ka daran way khaladka kale uu galay wuxuu leeyahay ninka la waliid ibn Utba ما تقانا واحد إن جاءكم فاسق بالنبي فتبينوا آية القرآن أرت الصحابي بوها أرتها خلتك وقالينا واحد اللي هذا ولاد الصحابي قاسوا سوت ولاد خلتك وقالينا نيش يا ولي الله ما يرضوك قالين مد علمي مد ما قرني سو قد عي مشاهلي بقول عي مسمى قرني خلتك علمي حويا الصحابي مركا إلهي القرآن كسود الجنة القرآن كأسباب كوي بعدها أسباب تاس وكوي ما دو القاب تقوة القرآن كمركا أوصاف القرآن كقوة ذي حبارسين هنا وحي حقيقته أي كو تطبيق لا قيام ساعة قف كي بعدها صحابي وحبا الله دري وش هذا الكيبو خلافي هنا بقى مركب حل يدي إن جاءكم فاسق بالنبأ لكن محل وجه ده عاد قرآن محل وجه ده وحل وجه ده النبي محمد عليه الصلاة والسلام قداش يسعد خلافته بوجه ده بعاد وهاي إلى قيام ساعة قف كي يماد وماشي مركب اللي هذا
yacnaha khusuusiga laguma dhego sababta waxan ay kusoo degeene laakiinse lafdigan cumuumkiisa iyo ictibaarka iyo axkaamta iyo macaanida uu xambaarsan yahay baa la qaataa lagu dhaqma khalad kalu galado wuxuu yidhi waxa waa fi riwaayatin waxaa ku sugan hee fatathabatu ma fi riwaayad kale mise fi qira'a kale idhahna ilaa ku dhaarshay maxaan meeshan idhaha yacnaha waa khalad xitaa qur-aanka waxa la yidhaha matnigiisa oo iska cad weeyaan waxa la yidhaahdo qira'ani dee sax in la yidhaahdo wuxuu yidhi waxa la riwaaya ku sugan buu ku leeyahy sidii mataqaanay sidii a'immadii shaacada ay yidhahdeen oo kale طيب خلد ككلاء يقول وحول فعلم ما في قلوبهم من نفاق بكفسر والنفاقة إلهي سبحانه وتعالى نادر محلين آخرين أنا هدي محلين آخرين بالله عليكم حدر معنا إلهي سبحانه وتعالى إنه إلهي كرها للنقضي حقين منافقين مركز أصلا لقد رضي الله عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت شجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينة ما شاء فيرسو فأنزل الله سودتي السكينة سكينة محلي هذا سؤال سربين ويديو ومحو كل إلهي سبحانه وتعالى فأنزل سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا حتى إلهي سبحانه وتعالى النصر ما دام إيمان كاس إيه إخلاص كاس إيه إسلام لماذا أصابها يستان حتى فتح قريب أدونك رمب على ينفر يابو إلهي كسر بكفر حلان دون طاب إلهي سبحانه وتعالى ماشي أقول بشارين طيب وخلطاتك وقلوي خلطاتك كلا وقلوي وحالي حكوتشي ربح وليه هاي وحودها هاي عمر بن كوبد بادني صحيح مسلم حكوتها لب وليه عمر بان ku badbaadnay nabi maxamedna waa ku halaagsanay baad ku taala xagee ku taala nabi maxamed ku halaagsanay bal meesha ku taala sheego nabi cumar baan ku badbaadnay nabi maxamed fiqigiisa baan ku halaagsanay buu inay billahi alaykum aan maqlay man bal ha sheego qisada iyadoo ka jawaabi doona cumar hawshiisa hore way soo socota aayada fi suuratu nisaa inaga iska leh macnaha aayada suuratu nisaa wa man yattabi' ghayra sabil almu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama macnaha soo ismay raacin Abu Bakr iyo Cumar iyo Uthman iyo Ali iyo jamiicu as-sahaba على بيعة أبو بكر وعلى بيعة مركو أبو بكر يوحي دينتانا على بيعة عمر يوحي كلا كسوري مركو دينتانا على بيعة العثمان ولا صوت سكبر راعين هكذا جواب وحلي هذا مركا يا هيستا مركا عيد بالله عليكم ما أهل السنة هيستا مسوحي هيستا شاع هيستا أنا قاس كله ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسليه جهنم وصعد مصيره بالله سبحانه وتعالى سجى مش كقول دون آخره أيضا أما قصة العمر ee ku saabsanay xilliga rasuulka kaleey salaatu wasalaam markuu geeriyoonay dhibka ku dhacay bal hadii iga dhageyst waxa la yiraahdo wuxuu dhahay Umar bin Khattab iyo ragii dadka la joogay rasuulka kaleey salaatu wasalaam markuu xanuunsaday wuxuu kitaab aan idin qoray keena oo aan dib isu khilaafi doonin hala ii keeno sidaas uu maalintaas waxay ahayd maalin khamiis rasuulku geeriyooday maalin isniinaad buu geeriyooday imsu ka bacdi sii noolaa afar buu sii noolaa soo maaha ama saddex طيب afar maalmood damo sii noolaa marka maalintii laga jaro macnaha aan isla socono marka Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu rasuulku horta aad buu xanuunsaday waxa la yiraahdo markuu xanuunsaday kadibna waxa la yiraahdo rasuulku markii hadalkaas wuxuu yiri ii keenan kitaab aan idin qoro oo aydan waligiin baadiyoobi doonin Umar bin Khattab wuxuu yiri xasbuna kitaabullah kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka ay nagu filan nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam waa xanuunsaday sidaas uu yiri hadalka wuxuu yiri nabi maxamed inuu u naxo oo u danqado oo waxa la u ishfaaqo oo kitaabka ilaahay باب إن دحيالا إلهي نقول ما فرطنا في الكتاب من شيء إلهي سبحانه وتعالى نكيل رسولك عليه الصلاة والسلام سنة دي سيبا إن دحت الله نبي محمد حنون كاسا هاي كربلاس نبي محمد صوفر يصادر كتاب كنو يري أرنت صحابة كردي أنت هاي كتاب كقرآن كاي سنة رسولك هذا محل يده ده إنه دحيالا إنه وجود في الله إنه آخر السنة حكامته ده واسعة وحي أرنت صوت هاي إن النبي محمد قلنا حين النبي محمد قلنا حنون سيدا سوير صحابي كليه oo hadal ku soo celiyay jireen way ku wada waafaqeen Abdullah ibn Abbas waa ka xanuunsan radiyallahu ta'ala anhu iyaguna ay gaalisiin oo yiraahdeen ninkaas waa jaahil sakhiif ah fadhigeyn horeen ku sheegnay saxaabigaas hadalka ay iyaguna say u galeen annaguna waxaanu leedahay waa turjumaan qur'aan waa sayyidul hufaad wal awwaliin wal aakhirin baanu leedahay tayib marka waxay tahay marka koowaad waxaanu leenahay arintaas jawaabtu waxay tahay nacam nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam diisaashu waxay tahay horta ma xanuunsadaayo miirkiisu ma doorsoomi karaa oo qandhada ma ka tan badan kartaa wax ma iska bedeli karaan su'aashu ilaa wasaas moogti anagu waxaanu leeyahay nacamha ilaa waa bashar maxaa daliila waxa noo daliila waxa shaacadu sheegtay noo daliila anagu aanu sheegnay shaacaduna ay sheegeen tayib nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam wuxuu ka cabanayay sakaraatul mawtka dib baa ku dhacaya dhibaatooyinkaas oo dhan baa soo garay oo yaqiib aan waxyil waliba ka ayil bashar sidaas oo kale waliba daliishada marka kutubtoodan ka qaadanayay kitaabka la yiraahdo tafsiirul ayaashi mujallada 2 رواية عبد الله بن سنان عن جعفر الصادق وكورني أهل بيتك أئمة أهل البيت وفرس حلي دخل علي ما صاق لي بليه على رسول الله في مرضه رسولك عليه الصلاة والسلام حنو سنية
baa cali soo galay waqad xaqiiqa kul uqmaya calayhi nabi maxamed waa uu suxsanaa buu yidhi uu miir doorsanaa yaa dhahay waxaa dhahay tafsiirka wadaadka cayaashi ee a'immada raafidada ah baa isaas yidhi ayib meeshaa may fahanteen bilahi calaykum yaa sidan yidhi baan dhahay inuu nebi maxamed suuxay sheecadaasaa werisay haddana maxay nagu ceebeynayeen cumar bin khadaab baa wuxuu yidhi nabigii waa xanuunka ka tambatay iyagu weli way kasii dareen waxay leeyihin weliba isagoo suuxsan bay dheheen uqmiya calayh wa ra'su fii xajri jibraa'iil bay dheheen nabigu malaku jibriil baana hayay isagoo markaa isla markaana suuratu dixyati bin kalbi isagoo suuradiisa soo ekeysiiyey buu meesha fadhiyaa saxaabada ku dhex jiraa ma diidarin waxaa ku jira kitaabka leeyahay amaali tuusi riwaayatu cali ibn sinaan isla markaas waxaa meesha waxaa ku yimid cali baa soo xaadiray nabigu calayhi salaatu wasalaam hay fabakaa rasuululahi xataa uqmiya calayh nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu geeriyoonayey waa ooyey ilaa uma taqaanan suuxay almufiid wadaadka leeyahay fi kitaab layahdo leeyahay al-irshaad waxaa isna ku yimid sidoo kale kitaabka la yihahdo buu ku sugan yahay horta arrinta qisadaasa aan idinku sheegay saasuu ku sugan yahay labadaa kitaab hore aan idiin sheegay isla kitaabkan kale haddeer aan marayo ee la yidhahdo kitaab al-irshaad la yidhahdo almufiid uu leeyahay 93 riwaayad wuxuu sheegay ana nabiya athnaa maradihi markuu xanuunsanayey baa wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam dardaarmay anfidu jeysha usaama jeyshkii usaame ee aan diray sii daayo sidiisa ha ku fulo 3 jeer buuna ku celiyey uma uqmiya calayhi markaasuu haddana nebi maxamed suuxay bilahi calaykum halkaasuu nebi maxamed marayaa saasay qirsan yihiin nebi maxamed soo fadhiiso kitaab noo qor qalbigaaga ma ka imaan lahay kitaabka ilaahi subxaana wa tacala inuu inagu filan yahana waynoo imaan doontaa min atacabi aladii laxiqa bihi buu ku leeyahay dhibkii soo famakata haniyatan muqmiya caleyh isagoo muddo suuxsan buu joogay fabaka almuslimuun muslimiintii baa ooyey wartafaca annaxiibu baroortii baa kor u kacday xaasaskiisa iyo caruurtiisa iyo dumarkii muslimiintaba iyo dadkii kale soo xaadirayba uma afaaqa nabiyu waa rasuulka calayhi salatu wasalaam soo toosay fanadara rasuulka calayhi salaatu waa fiiri ilayhi qaala wuxuu ituunii bidawaatin iyo wakatifin aktub lakum kitaaban laa tadilu bacdahu uma uqmiya calayh kitaab ii keena aan idiin qoro cumar goormuu hadlay markuu nebi maxamed intuu hadlay dhahay kitaab ii keena uu suuxay haddana la sugay haddana uu soo kacay haddana uu suuxay haddana la sugay haddana uu buu cumar bin khadaab radi allahu tacala canhu xariistaasi u qabay uu yihi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam kitaabka ilah baa nagu firay daayay kitaabka leeyahay manaaqib ali abi aalib waxaa ku yaala mujallada 3 336 waxaa ku yaala sidoo kale cabdullahi bin cabaas oo ka warinaya ana nabiya uqmiya calayhi fii maradihi waa u suuxay wa fii nafsihi asafxa معناه الصفحة لفت جدنا لما حضرت رسول الله الوفاة أغشي عليه واو الصوحي فجاءت فاطمة تقبل قدميه وتبكي ورواية أخرى عن العباس بكورنيا ثم أغمي عليه فدخل حسن والحسين يبكيان يقولان يعني وحل إلى هذا ومتفق بان كنا هاي حدان هلكا كسي وذا كتاب كليها كوريني بحار الأنوار رياض أمال لصدوق إليه دمان وإيسا الصعدام كتب تاسو حي سويان sida ay ehlu sunnuhuna ay qabaan ee ah nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xanuunkii xanuunsanayay waa soo xidhabaytana waa loo naxay waqtiga iga dhamaaday uga sii badan yahay cali bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu baasna wuxuu leeyahay kitaabka nahjul balaaqa wuxuu leeyahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa la yiraahdo kitaabkii ilaahay inoogu soo dhiibay iyo sunnadiisa inagu filan daaya